بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سورة هذا خيارة شرط له أنا وآه إنجيل صادق حسن بوه ما أنت راح نشرح دونا إن شاء الله دوي بإدمو PLC Programming Logic Control شرح دونا عشرة تحناء ودي دونا إن شاء الله دوي بإدمو عشرة سو كلا مركا PLC Programming أول هروح أنصو شرح جرني PLC قيب هذا كل دون هذا أهل هذا سيده هذا connection key Programming أو معنا PLC Programming لو سميه by computer ما نسمينين إلا عشرة مويان أو قصية سيده start delta starterka يو reference forward runtii maantana waxaan sharax doonaa basic ahaan cashirkii koowaad oo laga magac baxay sida tan how to simulation ladder diagram using Siemens logo software PLC tutorial Somalian tutorial cashirooyinkan waxa waaye cashiro taxana insha Allah taala haduu eebidmo waxay waxaan doonaan cashiro taxana oo basic ah ilaa waxaan wadi doonaa insha Allah doo eebidmo ilaa high level aan geey doonaa sida tan diagramka iyo ku waxaan sharax doonaa saddex qodobo haday ahaan leed marka hore inaan jantus ama diagram inaan sharaxno kadibna marka inaan sameeyno hardware connection oo already uu diyaarsan yahay hardware connectionka explanation of wifi inaan ka bixino mid saddexaad waxa soo raacay markaas wixii la sameeyay qaabka u shaqeynayaan oo macnaha waxa ka dhigan tahay programka inuu simulation aan ka sameeyno inuu si shaqeeyo saddexdaas qodob ay kooban doonto insha Allah doo eebidma insha Allah taala ku soo dhawaada channelkeena Somali Tech Lab runtii Somali Tech Lab markaas waxay intagan tahay inay macnaha ashiro khuseeyo electrical electronic engineering qaybaheeda kala duwan lama soo koobi karo fanniga electrical electronic engineering runtii hadaa janaalka booqato Somali Tech Lab wax badan oo adiga oo ku anfo ayaa ka arki doontaa insha Allah taala cashiro far badan oo idin soo wadnaa runtii waxaan ka rajeynaa inaad si waafi ah ugu faa'iideystaan insha Allah taala waxyaalo qaar oo u baahantiina runtii oo idin wada doonaa wax qaar oo baahantiin commentyada noo soo qora saa idinka sameeyo sida macnaha waxa waaye Arduino microcontroller wax badan ku quseeyo oo sidoo loo sameeyo project runtii dhowr project ya jiro noocyo kala duwan qaabka macnaha adiga ma soo sheeg haday macquul tahay saan ku sameeyno ama hadii kale waxyaalaha kood iyo wixii aan ku soo dirno saa adigana macnaha waxa waaye wixii aad sameyn karto insha Allah taala haddana waxaan ku gali doonaa insha Allah taala explanation ama sharaxaadii runtii sharax marka hore waxaan sharaxi doonaa insha Allah saan sheegnay waa diagramkii ama jantuskii ahaa sida tan jantuskan wuxuu leeyahay sida tan waa sawirkan aad u jeedaan wuxuu sida tan waa halkaan waa u jeedaan waa switch 1 switch 2 push button 1 push button 2 oo on ah normal open ka kan waxa waaye meeshii macnaha source iyo ama 3D waaye halkan supply ah waa laambadii koowaadna iyo laambadii labaadna waa mid aan aad u jeedaan waa laba laambo ama laba dhalo ama laba laambad sida tan ama load 1 ama load 2 okay marka hore pluskan marka saan u soo qaadno runtii switch hadaa aragtid waxay ka dhigan tahay switch waxa lagu connection gareeyaa face ama fiila casaan ah ama fiilka connection gareey laakiin marka hore inay ku soo baxdaa dhanka oo positive ka ah waa muhiimada ugu horeyso waa positive ka kuma xiri karto dhanka negative ka waa negative ka waa neutral ki waaye ka soo qaad halkaan battery halkaan ka soo qaad ama supply halkaan ka soo qaad switch kan iriftiisa koowaad keen isla kan hadana meeshan jointi waxa loo yaqaanaa halkaan dhibcadan jointi loo yaqaanaa ama wixii wax isku xiro oo afka Soomaaliya sida tan halkaan keen halkaan soo qaad halkaan keen waa terminal 1 iyo terminal 1 kii oo switchada koowaad waa terminal 1 iyo terminal 2 leeyahay marka ka sii qaad terminal 2 bi toos waxa uu geey marka load kii u geey ama dhaladii ama laambadii ama nalkii
okay irifka labaad iyagana waxa waaye oo switchkii labaad waaye kasoo qaad idana qaybteeda labaad oo ah halkaan ka markaasi waa loadkii labaad oo isna irifkiisa koowaad loadkii koowaad irifkii koowaad loadkii labaad irifkii koowaad ama terminalkiisa koowaad irif waa ama terminal waa isku mid markaa shaqada markaa inta markaa geysid maxaa dhiman waa shaqada oo positive-ka ama shaqada oo macnaha waaye phase-ka ama waa dhameysay phase inkii waa dhameysay wixii dhan waa connection gareysay maxaa ku dhiman marka neutralkii ama negative-kii halkaan imaw halkaan fiil soo qaad halkaan keen soo wadi marka waxaa sameynay halkaan marka fiil san u keen marka hore waxaa sameeyay fiil halkaan ka soo qaad oo black ah iyo fiil kale halkaan ka soo qaad halkaan keen waa isku connection garay kadib marka common halkaan ka soo qaad markaas ana xisaab wada taqaanay marka shey markii oo san waxa la markaas marka loo qaybinay common aga markaas maxaa marka labada u dhaxeeyo kala baxay waa ashan fiila marka u dhaxeeyso taas ka dhiganta marka hashan fiilo ee halkaan ka soo qaad halkaan san ku shay connection garay ja switchadii markii la daaro hada off waaye on markii lagu soo dhigo normal code lagu soo dhigo lambooyinka mid kamid ayaa shidmayso tay shidmayso marka mid kan ayaa off waxa sisay push garaysay waa shidmay marka second hadana tan hadana push sinay marka waxa waaye separate waaye alada often waxa waaye separate waaye waxay u kala baxaan marka qayb macnaha waxa waaye qayb kasta waxa waaye si gooni u shaqeynay marka qaybtan si gooni u shaqeysay qaybtan si gooni u shaqeynay qaybtan marka damisid yaa hadana qaybtan daari kartaa ama labada hal mar oo shidi kartaa kana shidi kartaa kana waa shidi kartaa kaas waxa waaye jantuskan yar ayaan hadeer sharaxnay la soco asla programkana waxaan sameyn doonaa marka isla sida tan okay inana soco hadda waxaa noo dhamaaday halkii qaybtii ahayd sheeg adi diagramkii runtii oo diagramkii hadda noo dhamaaday kan waxa waaye hardware connectionkii oo halkaan ka haysano Siemens logo PLC oo kan ah halkaan ujeedan waa fadhigan waaye kan waaye runtii kan ayaa wax kasta wado PLC-ga waa Siemens PLC la yiraahdo kan marka waxa waaye waxa connection ka gareyso waxaan dhowgii program hadii oo program marka ka sameysid wixii marka waxa waaye automatic aan way shaqeynayaan asina see loo sameynaa marka okay marka hore waxaa jirto 24 voltage DC ah marka waxaa jiro dabka waxay ka leeyahay marka DC iyo AC okay dabka ugu weyn oo supply ugu weyn oo soo galo waxa loo yaqaanaa marka DC waa direct current AC waxa waaye marka alternate current direct current iyo alternate current waa positive kii 24 oo dabka ugu horeeya ayaa waxa loo yaqaanaa marka direct current okay waxa leeyahay marka phase in kan halkaan ka soo qaad horta intaan waxa jira markaas L iyo N ama M iyo L ama L iyo M mil khar waxa ka dhigi kartaa marka L iyo M ama L iyo N waa isku same waa L line waa marka line waa markaas oo kan waxa waaye markaas asina positive kii negative kii waa kan asina oo ground negative kii waa markaas okay supply marka saa u soo xirtid ayaa fiil halkaan ugu soo qaaday marka waxa leeyahay marka halkaan ka soo qaad si toos waxa u galay marka push button switch kan push button switch waa on push button switch loo yaqaan kan terminal hal qayb kasi oo terminalkii ah qaybta kale waxa waaye I1 key mana I waxa waaye input terminal markaas input terminal waa I1 key halkaan waxa ku sameeysan hal switch oo already ku sameeysan حدرب اسود لباد واكي هدي او شركه هدي اديس او ان شرحاي او دايجرام كي واسود لباد راه markaasay okay اسود لباد markaa roo markaas I2 ayaa halkaan ka siinaa isla kan ayaan joint uriga markaasay mana waa isla wadaagaa markaas halkaas waxa isla wadaagaa halkaas loo marka waxa sameynay I2 gi waxay dhigantaa markaas isud labaadkii ama isud labaadkii marka I waxa waa markaas input kii waa markaas halka tune ay ka tahay dhowin shan doona markaas output kii okay I1 kii ka soo qaad halkaan keen hal terminal ka helo isla kan way wadaagaan sababtoo ah waaye 224 voltage DC ga ayaa kan kala soo qaaday connection ka dhig kadib halkaan waxa ku idlaaday marka switchadii okay
waa inputkii waa dhameynay maxaa dhaba markaasay outputkii waa Siemens logo wuxuu leeyahay markaasay over 8ka ama over 6ka ama shay kasta delta ama scale distribution-kii iyo hadday yihiin haddii kaleba waxa waaye input iyo output ay leeyahay markaasay hakal duunaada qoraalada iyo nay wada shaqeyntii laakiin ogow wax kasta marka PLC la geliyo waxa markasta maqashaa maxaa input ah iyo maxaa output ah markaasay okay answer waa DC waa kan hadana waxa marka AC waxa markaasay alternate current marka idana waxa waa same size waa isku mid kaliya waxay ka duwan marka loadkii iyo switchadii okay halkan kan keen marka taasina waxa waa halkan L iyo N u bixi si qaad qaybtan oo positive ka ah iyo halkan loadku u geey indicator lamp baa la hatan marka loadkii ama nullkii okay qaybta kale halkan u soo qaad waa kana halkan kala soo markaasay sababtoo haddii isweydiis macna waxa waaye kan waxa waa neutral hadhow inta lagu jump kareyna kan ayaa lagu jump kareyna supply soo u helo markaas kan phase kan hadhow intaan asana marka waa lagu jump kareyna waa connection kareyna marka AC oo soo galaa markaas DC oo soo galaa AC oo soo bax markaas isla kan marka asana qaybtii marka waxa waaye kan Q1 kii waa markaas kan wuxuu noqonaa Q2 oo output kii ah waa phase kii waa kana phase u keen halkan neutral kan waxa waaye kan waa joint udig halkan neutral marka soo kaasi toos marka uu soo galay ya halkan kale connection uu soo qabtay halkan aad keenay kadib inta soo qaad inta kan markaas waa terminal 1 iyo terminal 2 waa loadkii labaad ama indicator lambadii labaad ama kan waxa waaye indicator lambadii koowaad asaab sharafta leh halkan waxaan ka idlaanay Siemens logo diagramkeeda ama hardware connectionkeeda yaan dhameeyay haddana waxaan gali doonaa doo ebidna insha Allah taala programkii wasla programkii waa saddex ku fiiri mid kooda soo faantay mid labaadna da faantay programkana waa faanti doonaa waa same process aan soo marka aan galno programkii aan soo kacsan okay hadda waxaan gudi galaynaa marka inaan soo kicsano programkana waxa waaye sida tan haduu noo soo kaco waxaan ka sameyn doonaa laba shay laba switch oo on ah iyo laba load ama laba laambad ayaan sameyn doonaa marka hore aan soo kicsano oo already hadda oo soo kacay waa kana waxaan leeyahay marka si soo kacayna marka fail tag fail marka ku dooro new ku dooro kadib dooro laser diagram ku dooro kadib marka wixii marka ku soo kacaan waa programkii ayaan hadda ku jirnaa kadib maxaan sameynaa marka make conductor kan waa contact switch 1 oo halkan special function key intaan iyo counter key iyo analogi waxaan dhan waxa way function oo isticmaalayso marka waxaan ku dooranaa marka make conductor u taa marka waa I1 key waa isku markaan ku dhufano isku markii I1 oo leeyahay marka switchada iyo waxaas waa markaasi waan ku dhufanaa marka I1 hadii marka I1 I2 meena marka ama switch 1 switch 2 saas ay dhigan tahay marka kadib marka laba switch marka aan soo diyaarsano switch kala halkan ay keen marka halkan ay keen marka switch uma bixin karaa waa may switch 2 markaasi input key markaasi hadii aan soo sheegnay input iyo output key hadana maxaan odhanay marka output key marka relay coil ka soo qaado oo magnetic conductor key ah okay halkan keen waa Q1 key waa hadii marka Siemens key Q1 iyo Q2 oo markaasi asla kan hadana soo qaadkiis labaad waa waaye halkan soo dhig marka ana halkan soo duuji halkan soo dhig am halkan soo kan soo qaad inta kan okay wuxuu noqday marka baasto uu noqday iska jarna marka okay dib malaha dib marka connection ki sameey inta connection galay bas barkan waxa waa ujeedaan waa bas barkii oo fiilooyinka loo connection garanayo kan halkan keen halkan soo dhameey okay halkan fiilada halkan soo halkan keen kan halkan soo qaad meeshiisba iskeel markaas waa midkan kii koowaad kan kii labaad waa marka maxaa sameynaa marka ashirkii koowaad kali waxaan ka barnaynaa waa sida loo sameeyo simulation si loo sameeyo waa simulation ka waa kana waxa tagay marka halkan ay qoran tahay maxaa qoran waa kana fiil simulation waa kan halkaas qoran tahay oo ku rufanay marka waxa ku soo baayay laba switch iyo laba laambad waa kana already laba switch waa kana switch 1 I1 I2 iyo Q1 Q2 okay waxaan leenahay marka halkan hadda badabkii uu joogo intuu jooga inta waa fiilin casaanka ah waa bas baarka casaanka ama guduudan waa waxay ka dhigan tahay uu jooga dabkii markaasi supply kale muxuu baahan yahay marka push current okay halka lagu push current marka waa kana waxa leeyahay marka switch kan is waa kana hoos ay qoranta marka sidoo waa switch waa kana ku rufo waa kana lambadan way daaran tahay waxay ka dhigan tahay minus hadaa arag casaankan ama guduudkan hadaa arag waxay ka dhigan tahay inay lambadii shidan tahay marka lambada markay shidan tahay lambadii koowaad shidan
haddii waxaan soo sheegnay waa separate waaye marka laambada tii koowaad bay shidan tahay tii labaadna waxa waaye marka hadda rabta waxa waaye tii labaad waa shidi kartaa waa kana haddii aan soo sheegnay hadda rabta tan waa damine tanaa ku shidan ama tanaa damine tanaa ku shidan ma fahanto malena tan waxay dhigan tahay marka fiilada asaan hadda arto waxa waaye meesha waa ku shidan tahay hadda intaan ku dami karaa waa kana halkaasaan kor tagaa korkiisaan dhex tagaa wana waa shidaa intaan tagaa marka waa daminaa markaasi asxaabta sharafta leh soo dhawaada channelka YouTube channelkayga waa Saadax waxa qoran Somali Tech Lab ana ah injineer Saadax Xasan Buwe runtii waxaan jeclaystay mar kasta wixii horumar ah asxaabta inaan la wadaago qaasatan waliba dadka afkaan ka hadlayo waa Soomaali luqad Soomaali waliba dadka Soomaalida waxa waa inaan ugu faa'iideeyo inta yar aan cilmi aan isleeyahay xogaa waa dhantaa runtii wama utitu min al-ilmi illa qalilan soo dhawaada asxaabta sharafta leh والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته